maanta 22 January 2023 abaara 12 daqiiqo oo duhurnimo ayay kooxdii khawaarijta naflacaaliga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada ammaanka oo aad u feejignaa ay ka hortageen isla markaana laga ilaaliyay argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortagay waxaana lagu ekeeyay in argagixisada dhammaantood la soo afjaro waxa galabta 10 iyo 4 iyo 30 daqiiqo lagu soo afjaray kooxdii khawaarijta naflacaaliga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka Banaadir ciidamada ammaanka ku soo afjareen halka qasaaraha ka dhashay oo dadka shacabka soo gaaray ayaa ah ilaa 6 qof waxa sidoo kale goobta ciidamada ammaanku ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tireedu dhammayd ilaa 5 qof oo meydkooda hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ah khawaarijta naflacaaliga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore ku dhintay halkaas ayaa 6 qof oo khawaarijta ka mid ah ciidan ku soo afjareen dhanka kaleetana dadka shacabka rayidka ah qasaaraha ka soo gaara ah dhimashada ilaa 6 qof mana jiraan wax qasaara inta ka badan oo goobta ka soo gaaray ciidamada ammaanka goobta ka agdhawaa ayaa gurmad u fidiyay dadkii wax soo gaareen maxay ahayd dadkii dhaawaca ahaana waxa loo qaaday gurmad caafimaad loo sameeyay oo maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ammaanku ay u fidiyeen